magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxay sanadii u dambeeyay sameeysay horumar kala duwan oo dhanka ganacsiga ah waxa magaalada laga hirgeliyay goobo ganacsi oo kala duwan sida hoteelo, maqaaxiyo, supermarketyo iyo qaybo kale oo ganacsi dadka ayaa ah kuwa si ay nabadgelyo iyo xasilooni ku dheehan tahay u dhex mushaaxaya bartamaha magaalada qaarkood ayaa ka tukaamaysanaya goobaha ganacsiga xilliyada habeenkii halka ay kuwa kalena ka shahayaan maqaaxiyaha iyo hoteelada ku yaala magaalada Galmudug TV ayaa u kuurgalay sida uu socdo ganacsiga caasimadda xilliyada habeenkii iyo sidoo kale dhanka amniga waxaana booqanay goobo kala duwan oo ku yaala caasimadda halkaani waa hotel Nimco and restaurant oo ku yaala bartamaha magaalada Dhuusamareeb saacadu waa 12 habeenimo waxa goobtaani ku sugan dhalinyaro iyo qaybo kale oo bulshada kamid ah kuwaasi oo koox u sheekaysanaya ma jirto wax cabsi ah oo ay ka qabaan dhanka amniga iyo in waxyeelo loo geysto qaarkood ayaa ka hadlaya isbedelada xilligan ka jira caasimadda bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Mawlid Axmed Xaashi waxaan kamid ahay dhalinyarada magaalada Dhuusamareeb waxaan joogaa muddo 3 bilood waxaan kamid ahay dhalinyarada magaalada Muqdisho oo ku faraxsanahay inaan habeen madow ku caawino magaalada magaaladana waa u jeedaan 100% amnigeedu waa magaalo la isku haleyn karo waa magaalada soo kubceysa waa caasimadii maamulka Galmudug waan ku faraxsanahay inaan xilligan fiidsano oo waraysi siino TV-ga Galmudug sida u jeeda dhalinyarada waa la iska caawiyaa magaalada waa iska amni hadda wax gooni oo sheega ma lahan bismillaah magacaygu waa Burhaan Ismaan Cabdille runtii hadda waxaan ku suganahay caasimadda Galmudug magaalada Dhuusamareeb magaalada baan rabaa inaan warbixin yar ka siiyo bulshada ku dhool dunida daafeeda kala duwan runtii haddii aan ka warrabo magaalada horta magaaladu waa amni amnigeedu waa 100% waa dareemaysaan sida loo fadhiyo iyo sida xilligan loo qaxweynayo xilligii adiga u baahan tahay baan magaalada soo gali kartaa ka bixi kartaa magacaygu waa Cali Mahad Cabdi Macalin Xasan Cali Bulsho ku sugan caasimadda dawlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb meeshan aan joognaa waa maqaaxida weyn ama hoteelka weyn ee Baar Nimco waa abaar 5 saac oo habeenimo waxaan ku caweynaynaa caasimadii sida aad u jeediinba waa la soo jeedaa dhalinyaradii waa tukaamaysanaysaa waa la ganacsanayaa waxay hor yaala waa cafe aan hadda xilligan ka dalbaday maqaayada Baar Nimco magaalada waxa ka jira amni buuxa waxa ka jira ganacsigeedii oo level fiican ah Carwa Galmudug waxa ay kamid tahay goobaha sida weyn habeenkii looga tukaamaysto isla markaasina ay soo booqdaan bulshada doonaysa inay goobtan wax ka iibsato maamulka carwada ayaa ka hadlaya sida uu ganacsigu u socdo magacaygu waa Cabdulqaadir Nuur Maxamed ku magac dheer Ogaal waxaan joognaa magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug abaarihii waa 5 habeenimo ganacsigu si xawaaraha u socda oo u jeedin jawi waa degan yahay waa nabad alxamdulillah barwaaqo Nimco Carwa Galmudug oo xilligan shidan oo bulshada aad aragtiin ay ka tukaamaysanayso ilaahay xamdigiis supermarket Happy Star dhawaan ayaa magaalada Dhuusamareeb laga hirgeliyay waxaana lagu iibiyaa waxyaabo kala duwan oo carwadani ay gado dadyo kala duwan oo ay kamid yihiin haween xaafado fagfag uga yimid inay halkaani wax ka iibsadaan isla markaasina aan wax cabsi ka qabin in dib loo geysto sidoo kale waxa goobtaani ku sugan haween ayagu qutriyoonkooda ka raadsada goobtaani ganacsi isla markaasina ka dhax shaqeysta waxayna ka hadlayaan qaarkood waxyaabaha ay halkaan u yimaadeen iyo sida ay ugu soo tukaamaysa tageen alaabtan ban iibsanaya carwadan ban soo galay Happy Star oo ku faraxsanahay waan xilli dambe ammaanka magaaladu waa ma sha Allah xaafada aan ka imid wax raacdaal dhaha aad aan ugu faraxsanahay iyadoo qofna i waardiyeyn qofna ila soconin aan soo adeeg tagay haddana adeegaygan qaadanaya xilli dambe way xilligan waa 5 saac xagga amniguna aad u fiican yahay meel kasta oo la mari karaa magaalada waa gobolkii gobolkuna amnigiisu aad u fiican yahay haddana waxaan rabaa adeegayga inaan qaato xaafadayda aadaan rabaa macluumaad taalo aad iyo aad oo badan yahay dhaqaalaha naga soo gala subaxii aniga waxaan soo galaa 1 saac oo kala camal ilaa habeenkii 5 saac camalna waa joogaa harqaanka waxa iga tashto sida dadka shaararka loo yareeyaa oo kale sida dadka diracyada oo kale xijaabada oo kale saakooyinka oo kale daahiyaasha oo kale
wax badan qaban uniformka istaalka oo kale kuwa bahalkii iskuulka oo kale waxyaabahaas oo dhan nala ka tasho shaqaalaha iyo maamulka supermarket Happy Star ayaa dhankooda ka warbixinaya waxyaabaha kala duwan ee ay iibiyaan iyo sida dadka ay wax uga gadaan. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Aniga magacaygu waa Axmed Qaadir, waxaan ahay shaqaalaha ka tirsan supermarket Happy Star. waxaan ka howlgalnaa meeshan, waxaan dadka u keenaa adeeg qiimo jaban, waxaan ka keenaa magaalooyin badan sida magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya. adeegan hadda ninkan naga gatay waa ku faraxsanahay, annagana si qiimo jaban u soo dhaweynay. ninkan adeegan ka gadnay waa 5 saac bar habeenimo. waxa amniga magaalada waxa lagu kala gadan karaa waa wanaagsan yahay. xilligaana dadku ismushaaxayaan, xilligaana maharadu noo furan yihiin. saacadan dad naga adeeganaya macaamiila waan soo dhaweynaynaa. amniga saana waxaan taageerinaa maamulka Galmudug sida caasimada uu wado adeegyada iyo TV-ga dowlad goboleedka Galmudug. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Daahir Mastarxiilay. waxaan u mahadcelinayaa TV-ga weyn ee Galmudug oo maanta nagu soo boqday xarunteena ganacsiga. aniga waxaan ahay maamulaha carwadan ama supermarket meeshan ka dhisan magaalada waa Dhuusamareeb, caasimada gobolada dhexe ee Galmudug. meeshan haddii soo nabad jirin waxa ma soo suurtagelin lahayn. meeshan waxaan ku lisanayno macnaha ku haasawayno, ku baashayno, ku raaxaysanayno, wax kala iibsanayno. waa nabad iyo aad ayaan u faraxsanahay. xilligan macaamiil noo joogo oo 5 saac bar ay tahay saacadu. waxaan gadnaa adeegyo kala duwan sida kabaha, dharka dumarka, dharka ragga, dharka ciyaalka, ubaxyada, waxa waaye jiifafka, fadhiyada, qasaaladaha, elektrooniga, dhan kastaba waxa waaye waan ka dhisanahay maasha Allah. hoteelada iyo goobaha kale ee laga cunteeyo ayaa ah kuwa xilli dambe lagu gaaro. Hotel City waxa uu ka mid yahay goobaha ay bulshadu habeenkii isugu timaado isla markaana ay sida weyn ugu sheekaystaan. waxaan goobtaani kula kulmay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan Galmudug oo koox dhalinyaro ah kula sheekaysanaya halkaani. waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka biyaha iyo tamarta Galmudug Maxamuud Nuur Diini iyo sidoo kale xildhibaan Ilka Dahab oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug. waxay ka hadlayaan dhankooda sida ay caasimadu horumarka u sameynayso. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. ilaahay baan ku mahadnaqnaa in aan caawa aan nasiib u yeesho aniga oo magacaygu yahay Maxamed Nuur Diini, wasiir ku-xigeenka tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Galmudug, in aan Hotel City oo ku yaala bartamaha caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb inaan cawada oo ah saqdi dhexe aniga oo ku caweynaya dhalinyaradii reer Galmudug ama caasimadan ay ugu caweynayso inaan nasiib u yeeshay in TV-gan aan ugu casuumo in maaragtay aan aragtideeda ka dhiibto sida maaragtay horumarka dhinacyada faraha badan ee caasimada sameynayso. amniga Dhuusamareeb falilaahi alxamdu waxaa lagu tilmaami karaa amniga Soomaaliya meelaha ugu amniga badan. waa dareemaysaan title wasiir oo meel iska bannaan iska fadhiya cawada hotel oo xilligan saqdiga dhexe asagoo aan staff iyo security midna aan wadan wax walwalan aan qabin inuu caawa halkaan maaragtay uu ku qaxweynayo oo dhalinyarada deegaan kula baashaalayo. ma haddaas ilaah baan u celinaynaa, ka soo ciidamada amniga ayaan u celinaynaa. Bismillahir Rahmanir Rahiim. waxaa wariye magacaygu waa Cabdirasaaq Shabeelka Dahab. runtii magaaladan Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug waxaan joogay muddo sanad iyo 15 cisho ah. markii aan fiiriyo markaan isbarbar dhigo xilligii aan imaanayay iyo xilligan waxaad dareemaysaa inay sarakac xoog leh jiro ama xawli runtii horumar badan laga dareemi karo markii la fiiriyo dhinaca ganacsiga. Dhuusamareeb ayaa hiigsanaysa horumar iyo mustaqbal aad u qurux badan, waxaana cid kasta oo reer Galmudug ay tahay mas'uuliyad saaran inay qayb ka qaadato horumarinta caasimada. si gaar ah qurbo joogta ka soo jeeda caasimada Dhuusamareeb oo la dareemayo in ninkooda uu gaabis ka jiro ayay tahay in ay ka soo baxaan kaalintooda ku aadan horumarinta caasimada Dhuusamareeb. Daahir Maxamuud Cabdi Daahir Yare, Galmudug TV, Dhuusamareeb.